kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiin daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni qubanaha maanta qodobada aad barnaamijkeenni qubanaha maanta ku daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxweyne maamulka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo la sheegay in xabsiga loo taxaabay Mareykanka oo xusaya 20 guuradii ka soo wareegtay markii la qarxiyay safaaradihiisii Nairobi iyo Dar es Salaam iyo xiriirka ka dhaxeeya Canada iyo Sacuudiga oo sii xumaanaya ciyaarihii iyo waliba qodobo kalena waa daawan doontaan aan ku bilownay madaxweynihii dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee shalay uu xilka ka degay Cabdi Maxamuud Cumar ayaa lagu soo waramayaa in ciidamada federaalka ee dalka Itoobiya ay u kaxeeyeen dhinaca iyo magaalada Addis Ababa ila ku dhow maamulka ayaa VOA u sheegay in ciidamadan ay saaka isku gadaameen guriga Cabdi Maxamuud Cumar talaabadan ayaa xiisad hor leh ka abuurtay magaalada Jigjiga Sultan Abdullaahi Bashiir oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida Itoobiya oo haatan ku sugan magaalada Jigjiga ayaa xariga madaxweynihii hore ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya VOA u xaqiijiyay walaalo saaka waqti ay ahayd madaxweynaha waad ogtihiin inuu xilkii uu iska wareejiyay saaka 9 subaxnimo ayaa gurigiisii waxaa isku hareereeyay ciidan ilaa 6,000 oo gaaraya oo wata ilaa 8 gaari oo gawaarida gaashaaman ee kuwa loogu talagalay diyaaradaha iyo helikobtaro iyo taangiyo iyo beebey wax ayna wadanin ma jirto ayay gurigiisii isku hareeriyeen halkaasay ka qabteen iyaga oo jir dilay ayay halkaa ka kaxayseen oo diyaaradii helikobtarta ahayd ay saarteen maxaa xaqiijinaya in jirdilka iyo weerarka aad sheegaysa u dhacay walaal horta anigu waxa weeye waxaan ahay nin Suudaana waxa aan ku sheegayana waa wax xaqiiqda ah wax markay dhacaana waad ogtahay wararka wax beena u baa la wada bixiyaa ninka kula hadlayo waa wax aan kula hadlayo waa Suudaan weeye sida aan kuugu sheegay ayay wax u dhaceen haddaad rabtaana idinku dad kale xiriir waad la samayn kartaan xabadna waa lagala daalay arrintuna sida anigu aan hadda kuugu sheegahaya ayay u dhacday magaaladii Jigjiga ahayd iyo dadkii shacbiga ahna waxay u baahan yihiin gurmad degdeg oo caalami ah in lala soo gaaro dawladda Canada ayaa jawaab kulul ka bixisay go'aankii dalka Sacuudiga uu ku eriyay danjirihii uu joogay magaalada Riyadh wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Canada ayaa sheegtay in dalkeedu aanu sinaba uga labalabayn doonin in ay difaacaan xuquuqul aadanaha sidoo kalena waddanka Mareykanka ayaa Sacuudiga ugu baaqay amaba ku booriyay inay dhowraan xuquuqul aadanaha isla markaana ay ka waramaan dadka xorriyadooda u xidhan wariyahayaga waddanka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa tafaasiisha warkaasi noo haya Xuseen
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay xuseen. waxay maanta ku beegan tahay sanad guuradii 20aad ee ka soo wareegtay markii labada weerar ee isxigay lagu qaaday safaaradihii Mareykanku ku lahaa magaalooyinka Nairobi iyo Dar es Salaam, iyadoo weeraradaasina ay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof. mas-uuliyiin ka socda dowladda Mareykanka iyo weliba mas-uuliyiinta maxalliga ah ee wadamadaasi ayaa la filayaa inay ka qayb galaan munaasabad lagu xusayo xusuusta maalintan. barqadii 7 Agoosto ee sanadkii 1998 ayaa laba weerar oo isxigay ay ruuxeen xarumaha safaaradaha uu Mareykanku ku leeyahay labada dal ee ku yaala bariga Afrika, Kenya iyo Tanzania, halkaasi oo ay ku dhinteen 224 ruux isla markaana ay ku dhaawacmeen dad ka badan 4,000 oo kale. qaraxa koowaad ayaa 10:00 subaxnimo ka dhacay bannaanka iridda laga soo galo dhismaha hoose ee gawaarida la dhigto ee safaaradda Nairobi, halkaasoo ay kuwa weerarka soo qaaday isku dayeen inay geerishka ku diyaamiyaan gaadhi ay walxaha qarxa ka soo buuxiyeen. waxaana qaraxan xooggan ee gilgilay magaalo ganacsiyeedka Nairobi uu si daran u dhaawacay safaaradda iyo dhowr dhisme oo ku hareeraysan. Paul Kaluku Lima waxa uu markaa ahaa nin dhalinyaro ah oo 30 jira oo ganacsi yar ku haystay bannaanka dhismaha. Tukasikia mlio ya kwanza kidogo, ndio karudia ile mlio kubwa sana. waxa aan maqlay markii hore qarax yar, waxaana ku xigay mid weyn. markaas ay ahayd markii wax kasta ay kharrimeen. dadka qaar waxaa waxyeeleeyey firiiryada bamka, qaar kalena waxaa waxyeeleeyey burburka dhismaha. meesha gebigeedba waxaa daadsanaa muraayado. Yani hata Satan ulikuta kila mahali vioo ziko, hakuna mahali hakukuwa na kioo. daqiiqado kadib gaari kale oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu weeraray bannaanka safaaradda Mareykanka ee magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania, halkaasoo ay ku dhinteen 11 qof, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. dadka waqtigaasi Dar es Salaam sida daran u dhaawacmay waxaa ka mid ahaa Crescent Hiza oo xilligaasi darawal ka ahaa safaaradda Mareykanka. Miskuelewa ndini kwanza. ma ogeen waxa dhacay. markii koowaad waxaan maqlay qarax, waan duulay. waxay ahayd riyo oo kale. markii aan soo miiraabayna waxay ahayd isbitaalka Muhimbili. kwa hiyo nilikuja kuamka nikiwa Muhimbili. Monica Kabilima sidoo kale waxay waqtigaasi ahayd shaqaale safaaradda, waana ka badbaaday weerarka sababtoo ah waxa ay bannaanka safaaradda ugu maqnayd shaqo aan xafiiska ahayn markii uu bamku qarxayay. waxaan xusuustaa dhismaha oo dabka kacay, dhirta oo daadanaysa, dhawaqa gaadiidka oo yeeraya. waxa ay ahayd isdhexyaac. waan naxay markii la ii sheegay in bam uu ahaa. aad baan u wanaagsan. isugeyn labada weerar waxaa ku dhintay 224 ruux, kuwaasi oo 213 ka mid ay ku geeriyoodeen Nairobi, halka 11 kalena ay ku dhinteen Dar es Salaam. sidoo kalena in ka badan 4,000 ayaa ku dhaawacmay. weerarka labadan safaaradood ee ku yaala bariga Afrika waxa ay dunida bareen Osama bin Laden iyo shabakadiisa Al-Qaacida. dhowr maalmood kadib sirdoonka Mareykanku waxa ay soo ururiyeen in Al-Qaacida ay qorsheeyeen isla markaana ay fuliyeen labada weerar. Mwenda Mibijiwe waa khabiir dhanka ammaanka ah oo ku sugan Kenya, waxaana xilliga uu weerarku dhacayay uu ahaa xubin ka tirsan ciidamada cirka Kenya, isagoo ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee ka soo jawaaba howlgalkii badbaadinta ee safaaradda Nairobi. taasi waxay ahayd markii ugu horreysay argagixisada ayna hadda naqaano gobolkeena soo gaarto. inkasta aynu ogeyn in argagixiso ay dunida ka jirto, balse markaa gobolkeenu ma aanay soo gaarin. sidaa daraaddeed ciidamadeennu uma aysan diyaarsanayn arrintaasi. in ka badan 10 xubnood oo Al-Qaacida ka tirsan ayaa la qabtay isla markaana maxkamad lagu taagay Mareykanka laguna xukumay xabsi daa'im. waxaana ka mid ahaa Abu Anas Al-Libi oo ahaa howlwadeen muhiim u ah Al-Qaacida, kaasoo laga qabtay magaalada Tripoli ee dalka Liibiya. Khalfan Khamiis Maxamed iyo weliba Axmed Khalfan Jaylani oo labadooduna u dhashay dalka Tanzania ayaa iyaguna maxkamad lagu saaray Mareykanka gudihiisa, waxaana lagu xukumay xabsi daa'im.
fazuul axmed maxamed oo isaguna haystay dhalashada dalalka kenya iyo comoros ayaa looga shakiyey inuu ahaa ninka hoosta ka hagayey weerarada bariga afrika waxaana la sheegay in lagu dilay soomaaliya kadib muddo 13 sano ah oo uu baxsad ahaa 20 sano kadib bariga qaaradda afrika waxaa jira isbeddello muhiim ah oo dhanka ammaanka ah magaalooyin waaweyn gelitaanka xarumaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahayba dadka aad ayaa loo baaraa hay-adaha ammaanka hadda waa la xoojiyey waxaa tababar lagu siiyey dhowr goobood oo maraykanku uu ka mid yahay howlwadeennadeennu waxay leeyihiin agabka bamka ogaan kara waxaanay tababar ku soo qaateen maraykanka iyo jarmalka weeraro badan ayaa ah qaar nolosha wax ka bedela 20 sano kadib crescent hiza oo weli darawalka safaaradda maraykanka ee Dar es Salaam waxa uu ka ildaran yahay xusuustii hore kutoka wakati huo mwaka 1990 ilaa iyo maanta cabsi ayaan ku jira gaar ahaan marka aan maqlo dhawaaq dheer sida taayar qarxay caadi ma dareemo xaaladahaas oo kale ambayo ilikuwa imechaguliwa na mstaafu rais maanta goobtii ay ka dhisnayd safaaradda maraykanka ee Nairobi waxa ku yaala beer yar oo lagu xusuusto hal gidaar oo sibir ayay ku qoran yihiin magacyada dhammaan dadkii ku waxyeeloobay weerarka Nairobi sida caadiga ah dadka reer Nairobi waxa ay booqdaan halkaasi isla markaana ku soo mijabaxsadaan si ay wax uga soo ogaadaan weerarkaasi dhacay sanadkii 1998 koonfurta dalka Niger gaar ahaan magaalada Birnikoni oo ay muslimiintu ku badan yihiin ayaa tusaale u noqotay wada noolaanshaha dadka diimaha kala duwan aaminsan iyadoo ay isku barbaryaalaan kiniisadaha iyo waliba masaajidadu warbixin amurtaasi ku saabsan waxay noo hayaan wariyahayaga Ibrahim Xasan Daanduray magaalada suuqa mashquulka ah ee wadada ganacsiga ee Sahiliya ee ku taala koonfurta dalka Niger muslimiinta iyo masiixiyiintu waxay heleen hab ay ku aqoonsadaan diinta midba midka kale boqolkiiba 98 dadka degan Birnikoni ayaa muslimiin balse taasi kama hor istaagan in xaruntooda ay sidoo kaleeto isticmaalaan masiixiyiinta alxaaji umuru uusi oo ah muslim ayaa waxa uu sheegay in magaalada ay ku faani karto inay tahay magaalo la wada joogo tani waa arrin xiiso leh inaad hesho kiniisad iyo masaajid isku meel ku yaalla iyadoo aanu jirin isku dhac adeem pilashi mrius oo ah masiixiyad ayaa sheegtay in ay tani tahay aqbalaadda diimaha oo lagu dhisay isxushmayn laba dhinaca haweenka masiixiyiinta ah ee jooga halkan Birnikoni waxay ku nool yihiin si nabadgelyo ah ma jiro kala duwanaansho weyn oo ka dhaxeeya iyaga iyo dariskooda deganaanshahan ayaa mar qura galay qalqal xilli la dayactirayay kiniisadda sanadkii 2011 markaasuu dhalinyaro muslimiina ay weerareen kiniisadda oo ay waxyeelayeen isla markaasna ay ka qaateen agab meesha yilay laakiin imaam malam Muhammadu Danwazifa ayaa sheegay in hogaamiyaasha muslimiinta si degdeg ah ay uga jawaabeen arrintaasi una daafaceen dariskooda haatan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha waxay noo haya wariyahayaga Nuur Xasan Nuur aan ku horeyna goolhayihii xulka kubadda cagta dalka Masar Cisaam Al-Xadari ayaa ku dhawaaqay in uu ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah Al-Xadari ayaa bishii hore noqday laacibkii ugu da'da weynaa ee dheela ciyaar ka mid ah koobka adduunka waxay markaasi da'diisu ahayd 45 sano iyo 159 maalin qoraal uu soo saaray goolhayahan oo ay aragga ah ayaa waxa uu ku yiri kadib 22 sano 4 bilood iyo 12 maalin waxay ila noqotay in hadda ay tahay waqtigii ugu wanaagsanaa ee aan ka fariisan lahaa ciyaaraha Al-Xadari ayaa ku biiray xulka qaranka Masar sanadka 1996 tan iyo markaasi waxa uu kula guuleystay xulka Masar 4 koob oo ah koobka qaramada Afrika 159 kulan oo uu saftay dhinaca wararka Ingiriiskana waxa ugu weynaa maalqabeenka u dhashay dalkan Mareykanka Stan Kroenke ayaa la wareegay milkiyadda kooxda kubadda cagta Arsenal ee dalka Ingiriiska kadib markii uu iibsaday saamigii Alisher Usmanov oo ah ganacsade u dhashay dalka Ruushka oo kamid ahaa saamileyda Arsenal Kroenke ayaa markii hore 7% ku lahaa saamiga kooxda Arsenal halka Usmanov uu lahaa 30%. waxaa hadda Arsenal lagu qiimeeyay lacag dhan 2 bilyan iyo 300 oo milyan oo dollarka Mareykanka ah Arsenal oo ah koox dhisan 132 sano ayaa kamid ah kooxaha ugu guulaha badan dalka Ingiriiska dhinaca kubadda cagta
ugu dambeyntiina orodyahanka reer jameyka usain bolt oo tan iyo markii uu ka fariistay tartanada orodada caalamiga ah isu bedelay ciyaaryahan kubadda cagta dheela ayaa ku biiray kooxda Central Coast Mariners ee dalka Australia. bayaan ka soo baxay kooxda Central Coast ayaa lagu sheegay in Bolt uu keliya la tababaran doono naadiga balse aysan la gelin heshiis rasmi ah oo uu kooxda ugu ciyaaro. guud ahaan daawadayaal waxaan taasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeena qubanaha maanta tan iyo intaynu barnaamijka mid lamada isugu iman doono waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo.